maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxaa la soo taagay laba eedeysane oo lagu kala magacaabo Cabdinaasir Macalin Xasan iyo sidoo kale Maxamed Nuur Cali. labadan eedeysane ayaa waxa loo haystaa inay bambo ku tuureen hotel ku yaala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, waxaana maxkamaddu ay ku soo eedeysay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab. Ogorantii maxkamadda ayaa labadan eedeysane wax ka weydiisay dambiyada loo haysto iyo sidoo kale inay bamba ku tuureen hotel ku yaala magaalada Baydhabo, waxaana eedeysanayaashan maxkamadda horteeda ay ka qirteen in ay galeen dambiga loo haysto. hadda arday meen waa shaqaysanay magaalada marna iskuul ma reer shaqa maxkamada bakhaarle oo cabitaan li jimli waxa kale suuqa ku shaqaysanay hay'adooda maxaa kaga baxay waxa iga baxay waa dood in ani hooyaday iyo walaalahay iyo gabdhaha joogno adrinta ku wada fadhino guriga gadaalkiis oo meesha darbiga rishaga waxa ka yeertay maana waxa ka dhacay dan adeertay anaka oo dhan waa isku korseexnay maal hooyaday anaka oo dhan kana imaaday guriga soo galay anaka waan soo safi hadana guriga ku laabtay marka waxa ku haayeen keena saldhig la soo baxay saas waa kanta la keenay waxaan marka ma jirto ma sheegino baashan laga qaad marino markii saldhig keenay miiska soo saaray arkibahaas saldhig weeyna markii ninkan isoo wada arkay bas iskuul baan dhiganaayay iskuulkee Victoria fasalkeeta waanamay hadda jaamacada isu diyaarinay oo ka baxday iskuul dugsiga waanamay imtixaan dawladda u gashay waa galay ugu baas si soonkum wayba iskuul misan jaamacad misan neebsaday hadda la isoo faday in is diyaariyay maxaa ka faa'iido doodan maxaa ka dhacay meeshan macnaha oo idroogna oo ni waalidiintana meelisa fadhiyno oo ay sugaan ya walweerin markii walweerin una dhanba iska qorjeefan bismillaah la iswada qabsay markan ilaahay marshii askartii arbiya meeliyo ku wareegdaas diyahan garoorti markan askartii arbiya hoob koyti markan askartii booliistan hore u koyti oo ishahad ku leey ya idkooni markan sidiya marka lahani wadi afar qof ahayni lama hegal ku dhii lamadaan sideenay ugu dambeyntii ku xigeenka xeeraryaha guud ee ciidamada Maxamuud Iidow ayaa maxkamadda ka codsaday in ay go'aan ka gaarto eedeysanayaashan maanta lagu soo eedeeyay inay bamba ku tuureen hotel ku yaala magaalada Baydhabo. Maxkamadda sharafta leh labada eedeysane ee maxkamadda hor fadhiya sidoo baaraha sheegay mudan gudoomiye maadaama wax cadeen ah oo falgaransi ah oo maxkamadda aan la horkeenin isla markaana hay'adda baarista dambiyeedida ay hore laba kamid ah afartii la soo xiray ay sii daysay cadeen awgeed sida uu qabo qodobka 115 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxaan codsanaynaa maadaama labada eedeysane la soo xiray markii hore laba eedeysane kale oo ay CID-da laanta baarista ay go'aan ka gaartay maadaama cadeen buuxda ah xafiiska xiraanta uu soo gudbay maxkamadda horteeda maadaama marqaati cad oo ku cadeeyo oo si buuxda u cadeeyo maxkamadda xafiiska xiraanta uu horkeeni waayay waxaan codsanaynaa maxkamadda sharafta ka codsanayna ay go'aan ka gaarto kiiska labada eedeysane loo hayso maxkamaddu way mahadsantahay. maalmihii ugu dambeeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybaheeda kala duwan ayaa waxaa ka soo muuqanayay dad ku eedeysan inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab, waxaana eedeysanayaashaasi lagu kala xukumay xukuno kala duwan oo iskugu jira xabsi iyo sidoo kale dil toogasho.